السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمها بدن وسلامنتي مeel kasto dunida daafeeda ka joogta kusoo dhawaada barnaamijka aan ugu magac darnay kaasoo lagu magacaabo nolosha jalaayaasha kaliya barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa nolosha iyo reality-ga dhabta ku saabsan jalaayaasha daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkan kaliya waxaan diiradda ku saari doonaa sida jalaayaasha aktarada ay taageeraan diinta ay haystaan waxyaabaha ay xiiseeyaan iyo noloshooda gaarka ah waxyaabaha ku saabsan kaliya ayaan diiradda ku saari doonaa barnaamijkan daawadayaasha qiimaha badan maanta barnaamijkeena waxaan kusoo qaadan doonaa atriishada kaajal oo maanta u dabaaldegaysa dhalashadeeda 47 macluumaad u gaar ah atriishadan barnaamijka kusoo qaadan doonaa intaan guda gelin daawadayaasha qiimaha badan barnaamijkeena marka hore kusoo dhawaada channelkeena fadlan hadday tahay markii kugu horreysay aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar like saar muuqaalkan waayo dad badan ay gaarayaan aragtadaana comment noogu reeb marka hore daawadayaasha qiimaha barnaamijkeena waxaan ku bilaabaynaa waa kuma kaajal magaceeda dhabta waa kaajal muqraji sidoo kalena nays ahaan waxa loogu yeeraa kaid markaan fiirino xirfadeeda waa atriisho markaan fiirino dhererkeeda waa 1.61 cm culeyskeeda waa 57 kg markaan fiirino kalarka timaheeda waa black markaan fiirino waqtiga rasmiga atriishan ay dhalatay u diiwaan gashan kaajal waxay dhalatay maanta oo kale 5 Agoosto 1974 sidaa daraadeed maanta waxay u dabaaldegaysaa dhalashadeeda 47 markaan fiirino meesha ku dhalatay waa Maharashtra oo xarun u tahay magaalada Mumbai sidoo kale markaan fiirino dhalashadeeda waa Hindiyan ama Hindiya atriishadan sidoo kale isla meesha hadda ay ku nooshahay waa Maharashtra oo xarun u tahay magaalada Mumbai sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan markaan fiirino filimkeeda ugu horeeyay bollywoodka ku soo gasho waa filim lagu magacaabo biqudi oo la daawado 1992 markaan fiirino dhankaas TV waxay ka soo muuqatay sanadkii 2008 dhanka kale dhanka waxbarashada markaan fiirino atriishadan xog badan laga mahayo waxa u diiwaan gashay inay drop gareysay iskoolkeeda markaan fiirino aabaheed waxa lagu magacaabaa Leed Shomo Mukhraji wuxuu ahaan jiray film sameeye markaan fiirino hooyadeed waxa lagu magacaabaa Tanuji waxay ahaan jirtay atriisho markaan fiirino atriishadan ma leedahay walaal ama wiil lama dhashay jawaabta waxay noqonaysaa waa maya sidoo kale waxay leedahay gabar ay la dhalatay oo lagu magacaabo Tanisha Mukhraji oo iyadan sidoo kale way ka yartahay waa atriisho markaan fiirino kaajal diinta ay haysto waa Hindu ama waa Hinduism atriishadan markaan fiirino hobbigeeda waxyaabaha ay jeceshahay waxa kamid ah inay wax aqriso sidoo kale waxyaabaha aan ka soo qaadan karna waxa kamid ah cunooyinka favorite ka jeceshahay waxa ugu horeeya waa pizza sidoo kale waxay jeceshahay pastada sidoo kale markaan fiirino jalaayaasha ay taageerto waxa ugu horeeya saygeeda Ajay Devgan ay taageertaa sidoo kale waxay taageertaa Shah Rukh Khan sidoo kale markaan fiirino atriishooyinka ay taageerto waxa kamida Saardeef atriishada geeriyood ay taageertaan markaan fiirino filimada ay ugu jeceshahay Bollywoodka waa Shola iyo Jalbas sidoo kale markaan fiirino film sameeyaha ugu ay taageerto waxa kamida Aditya Chopra markaan fiirino kalarka ugu jeceshahay waa white sidoo kale meelaha ay jeceshahay inay dalxiisaan u hado waa dhankaas barlay Europe sidoo kale daawadayaasha qiimaha badan kaajal waa mawaaxaas waa la qabaa waxayna u dhaxdaa superstar lagu magacaabo Ajay Devgan waxayna isguursadeen 24 February 1999 waana family hadda ku wada nool si farxadda sidoo kale waxa u joogan kaajal iyo Ajay Devgan laba caruur gabar lagu magacaabo Naisa iyo sidoo kale wiil lagu magacaabo Yog ayaa u joogan markaan fiirin lacagta mushaar ahaan ay hadda aflaamta ku sameeyay kaajal waxa u diiwaan gashan lacag u dhaxaysa 9 koror ilaa 12 koror inay aflaamta ku sameeyso markaan fiirnad waqtiga hantida guud ay hayso waxa lagu qiyaasay lacag u dhaxaysa 16 milyan ilaa 18 milyan oo dollarka Mareykanka ah waxyaabaha kale daawadayaasha qiimaha badan ka soo qaadan karna kaajal waxa kamid ah hadda kaajal ma cabtaa sigaar jawaabta waxay noqonaysaa maya sidoo kale ma cabtaa ma alcoholada jawaabta waxay noqonaysaa waxyaabaha kale aan ka soo qaadan karnaa atriishadan waxa kamid ah saygeeda Ajay Devgan markii ugu horeysay ay wada kulmayeen waa sanadkii 1995 laakiin fakta hore atriishadan kaajal maysan jeclaysan ama maysan ka helin Ajay Devgan laakiin 15 maalmood ka bacdi midka kale jecel ay u qaaday sidoo kale waxyaabaha kale aan ka soo qaadan karnaa waxa kamid ah atriishadan laga diiwaan geliyay waxa u qorsheynay hadiisan atriishan noqon lahayn inay noqoto dhakhtarad ku takhasusta cudurrada ku dhaca maskaxda sidoo kale in adeerada ay Bollywoodka ku leedahay waxa ugu caansan waa Rani Mukhraji maxaa yeelay waa ilma adeer laxmi ah sidoo kale atriishadan xanti ugu weyneed oo laga diiwaan geliyay sanadkii 2001 ay ahayd sidoo kale waxa la sheegay in ay ur lahayd sidoo kale cunugaas uu dhicis ka noqday laakiin la hadda warkaas ayada laga xaqiijinin sidoo kale kaajal waa mid kamid ah hablihii loogu jeclaa bartamihii sagaashamaadka fanka Hindiya qaasatan Bollywoodka
macluumaadka kale Kajal aan ka soo qaadan karno waxaa ka mid ah Kajal waxay ahayd dooqa koowaad filimka Three Idiots laakiin Kajal way iska diiday in ay jisho filimkan waxaana booskeeda lagu bedelay Kareena Kapoor Khan sidoo kale Kajal hitkeeda ugu weyn oo ay sameeyso waa filimka Dilwale Dulhaniya oo ay la sameysay SRK ama Shaaruqan sidoo kale Kajal waxa la sheegay in aysan ku fiicnayn dhanka cunto karinta Kajal waa atriishadii ugu horeysay awal maarinta lagu seeyo doorka xumaanta yacni kaabalaadirnimo waxayna ku qaadatay filimkeeda Gupta waxayna ku qaadatay abaalmarinta Filmfare Award for Negative Role Kajal marka ay ku soo biireysay fanka Hindiya ahaan waxay ahayd atriisho aad u yar sidoo kale waxay jirtay 16 sano kaliya sidoo kale Kajal maanta waxay u dabaaldegaysaa daawadayaasha qiimaha badan dhalashadeeda 47 sida daraadeeda waxaan leenahay dhalasho wanaagsan waxa halkaas inagu dhaman daawadayaasha qiimaha badan barnaamijka nolosha jilaayaasha sidoo kale maanta barnaamijkan waxa uu hadlaynaa Kajal maadaama maanta u dabaaldegayso dhalashadeeda 47 waxa halkaas inagu dhaman macluumaadkan ka soo diyaarinaa atriishadan sidoo kale haddii tahay markii kugu horeysay channelka soo boqonayso fadlan subscribe noo saar sidoo kale muuqaalkan like saar waxay nagu dhiirigelinaysaa in asxaab fara badan uu gaaro muuqaalkan sidoo kale muuqaalkan share inoo dhigtay saaxiib wanaagsan adigoo kale channelka ugu soo xirmaan sidoo kale intaan barnaamij la mid aan ku kulmayno assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkaas inagu dhan barnaamijkeeni fadlan hadday tahay markii kugu horeysay aad soo booqato channelkeena fadlan subscribe noo saar muuqaalkan like saar waxay ka dhigan tahay inaad muuqaalkan faafinayso maadaama aad like saartay aragtidaadana comment nagu reeb muuqaalkan share assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala